بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad ka daawanaysaan waa Somali Banaadir TV qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya banaanbax lagu taageerayay madaxda Galmudug oo ka dhacday Mudug iyo Galgaduud dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo hor leh saakay u daabushay degmada Luuqa amisom oo war ka soo saartay doorashada ka dhacday Galmudug al-shabaab oo shaqaale samafal ka afduubtay Gado iyo Mareykanka oo ka hadlay duqeyn ka dhacday Jilib qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka inta uu socdo intaasina waxay ayeen qodobada warka ku turkorona iminkana ku soo dhawaada isagoo fidsan banaanbaxyo lagu taageerayo madaxda cusub ee maamulka Galmudug ee shalay lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud deegaanada ay banaanbaxyada ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka Dhuusamareeb, Cabudwaaq, Kalgacyo iyo Cadaado waxaana banaanbaxyadan dhigayay dadweynaha magaalooyinkaasi banaanbaxyada oo isku mid ah kaga dhacay magaalooyinka Dhuusamareeb, Cadaado iyo Kalgacyo ayaa waxaa jira mas'uuliyiin ka qayb galaya kuwaas oo iyana taageersan doorashada lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb shalay ayay ahayd markii madaxweynaha Galmudug iyo ku-xigeenkiisa lagu doortay magaalada Dhuusamareeb kadib doorasho ka dhacday magaaladaasi dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in hub iyo ciidan dheeraad ah ay saaka geysay degmada Luuqa ee gobolka Gado halkaas oo muddooyinkii la soo dhaafay ay dowladda ka waday abaabulo ka dhan ah maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka in ay ciidamo iyo hub ku daabuleyso degmada Luuqa si ay colaadda uga horiso deegaanada gobolka Gado saakay ayaa waxaa la sheegay in dowladda Soomaaliya ay boqolaal ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliya gaar ahaan kuwa Haram Cad ay u daabushay degmada Luuqa ee gobolka Gado kuwaas oo diyaarado looga qaaday garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho dhawaan degmada Baardheere waxaa laga qaaday ciidamo ay dowladda horey u geysay kuwaas oo la geeyay degmada Luuqa ee isla gobolka Gado dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa maalmihii la soo dhaafay ka jira gobolka Gado kuwaas oo ay wadaan ciidamada ay dowladda federaalka geysay gobolkaasi iyo kuwa Jubbaland oo ka howlgala qeybo ka tirsan gobolkaasi Gado xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo ka soo jeeda gobolka Gado ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka in ay gobolka ka horinayso colaad isla markaasna ka digay in dagaal ka dhaco deegaanadaasi geesta kale war qoraal ah oo ka soo baxay taliska midowda Afrika ee AMISOM ayaa waxaa looga hadlay doorashadii madaxweynaha Galmudug iyo ku-xigeenkiisa ee shalay ka dhacday gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud war-saxaafadeedka AMISOM ayaa ugu horeyn hambalyo ku aadan doorashada looga diray hoggaanka cusub ee maamulkaasi sidoo kale taliska ciidanka nabad ilaalinta midowda Afrika ayaa madaxweynaha cusub ee Galmudug iyo ku-xigeenkiisa u rajeeyay in ay guul ka gaaraan xilalkaasi culus ee loo doortay qoraalka taliska AMISOM ayaa ballan qaaday in ay la shaqeyn doonaan madaxda cusub ee dowlad goboleedka Galmudug si wax looga qabto ammaanka magaaladaasi hagaagka iminkana Gado wararka laga helayo gobolka Gado ayaa sheegaya in dagaalamayaasha al-shabaab ee shaqaale samafal ah ka afduubteen deegaano ka tirsan gobolkaasi afduubkan ay geysteen xarakada al-shabaab ayaa waxaa ka hadlay maamulka Jubbaland waxa uuna sheegay in shaqaalo hay'ad samafal ah ee al-shabaab ka afduubteen deegaano ka tirsan gobolka Gado shaqaalahan oo gaaraya laba ayaa waxaa la sheegay in laga afduubtay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado isla markaana ay shaqaaluhu ay ahaayeen kuwa Soomaali ah wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland ayaa sheegay in labada ruux ee hay'adda u shaqeynaysay ee la afduubtay ay yihiin Soomaali balse aysan weli ogeyn halka la geeyay hagaaga daawadayaal waxaad daawanaysaan janaalka Somali Banaadir TV
war-saxaafadeed ka soo baxay howlgalka dowladda Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in weerar ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku beegsadeen qaar ka mid ah xubno ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Weerarka oo ahaa dhanka cirka ayaa si gaar ah kaga dhacay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. War-saxaafadeedka ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in lagu qaarijiyay mid ka mid ah saraakiisha xarakada Al-Shabaab, iyadoona sidoo kale sheegay in qiimeyn ay sameeyeen weerarka kadib ay ku xaqiijiyeen in ay waxyeello soo gaareen dadka shacabka ah. Madaxa howlgallada Africom William ayaa sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay qayb ka yihiin kooxaha argagixisada ah ee dunida ka jira, ayna doonayaan in sare ay u sii qaadaan weeraradooda jihaadiga ah. In aad disho hal ruux oo ka mid ah argagixisada ayaa gobolka iyo Mareykanka ka dhigayso mid badqaba, iyadoona ay sii socon doonaan cadaadiska looga hortagayo xarakada Al-Shabaab, ayuu hadalkiisa sii raaciyay William. Galinkii hore ee 27kii bishii tagtay ee Janaayo ayay ahayd markii weerar ka dhacay meel u dhow isla magaalada Jilib lagu dilay xubin ka tirsan dagaalamayaasha xarakada Al-Shabaab. Weerarada dhanka cirka ah ee dowladda Mareykanka ka geysato Soomaaliya ayaa u muuqda kuwo sanadka ka sii dambeeya sii kordhaya, iyadoona sanadkii tegay ee 2019 uu noqday kii ugu badnaa, markaasi oo ay diyaaradaha Mareykanka gudaha Soomaaliya ka geysteen in ka badan 60 weerar oo dhanka cirka ah, kuwaasi oo badankoodu lala beegsaday goobaha ay dalka kaga sugan yihiin xubnaha ka tirsan xarakada Al-Shabaab. waa hagaagka iminkana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo iskaashiga caalamiga Mudane Tanjire Axmed Ciise Cawad ayaa ku qaabilay xafiiskiisa wasaaradda caasimadda Muqdisho wakiil goboleedka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan maandooriyaha iyo dambiyada Dr. Amado Philip de Andres, waxayna isla eegeen dhinacyada iskaashiga iyo isku duwidda xakameynta maandooriyaha, iyadoo la raacayo heshiisyo la saxiixay oo loo taabageliyay istiraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka maandooriyada. Labada dhinac waxa ay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay iskaashi u dhexeeya dhammaan dhinacyada ay khusayso si loo dejiyo waxwadaag dhab ah oo hubiya sii ambaqaadka taageerada barnaamijyada mustaqbalka, si kor loogu qaado awoodaha qaran ee looga hortagayo arrinkani iyo yareynta cawaaqib xumada uu ku yeelan karo qofka iyo bulshadaasi. In ka badan 20 ruux oo shacab ah ayaa laga soo sheegayaa inay ku dhinteen Burkina Faso. Weerarka oo ka dhacay xaafadda Bani oo u dhow caasimadda dalkaasi ayaa la sheegay in ay soo qaadeen koox aanan heebtooda la garanaynin oo sita mootooyin. Weerarkan waxa uu imaanayaa toddobaad kadib markii 39 ruux ay ku dhinteen weerar ay koox mitidiin ah ka geysteen suuq ku yaala magaalada Silkaji. Bilihii ugu dambeeyay gobolka Saaxil ayaa waxaa ku soo badanayay weerarada ay kooxaha jihaadiyiinta ka geysanayaan dalalka ku yaala gobolka. Dowladda Faransiiska oo ay gobolka ka joogaan in ka badan 5,000 oo askari ayaa sheegtay in 600 oo askari oo dheeraad ah ay u dirayaan halkaasi. Waa hagaagga daawadayaal, intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeeni. Haddii barnaamijka aad ka heshay, fadlan rukumo oo subscribe like iyo share noogu dar.